You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وايدين سلامي إلهي أيان خير إنك رجينيا عمري دير عبادة دميسترن يا عافماد دن انتبا وحان دين رجينيا رمضان كينات سي وناكسن كوة دطان مركز الدنيا دك جوكتان كسو دوادا جنالكس أنفع عدينك أو آدي آدم هاتسن كوي هوري إيقو حرنا واد محدسنتهين بقول كيبا بقول kuwiina cusubna soo dhawaada, wadna furan kusoo dhawaada, weji furan kusoo dhawaada, gacmo furan kusoo dhawaada. waxaa barnaamijkeedii daadihinaya anigoo ah walaashin shukrim aadan soo dhawaada mar walba insha allah. marka waxaan jeclaystay caawinaan idinla wadaago si aan sidaan hore idinkaga ballan qaaday videogii ka horeeyay oo ahaa ramadaanka ku saabsanaa. sidaad la socotaan caawa waa habeenkii koowaad ee 10kii dambe ee ramadaan. sidaas sidoo kale la socotaan 10ka dambe ee ramadaan waxay khusaysaa dadka cadaabka in laga xoreeyo. waxaan ilaahay ka rajeynaynaa dhammaanteen in ilaahay cadaabka naga wada xoreeyo, in ilaahay noogu wada bishaareeyana jannatul firdawso. ilaahayna ramadaanka kadib maaragtay qaatimo xumo iyo wanaag xumo ilaahay inuuna gelinin. marka waxa ugu horeeya aan rabay maanta inaan idinla wadaago waxaa weeye 10ka maalmood sida 10kii horeba idinkugu soo sheegay videogii hore. waxaan u kala qaybiyay habeen kasto ducad gooni ah si aan diirada u saaro. marka waxaa la dhahay wax markii lagu celceliyo waxay bato fursadaas inaa heshid. marka sababta loogu celcelinayo hal wax ama hal duco diirada loo saarayo waxay tahay si aan u badsano fursada in ilaahay insha allah naga aqbalo. ilaahay sidaa ognahay wuxuu dhahay weydiista ana waa idin siinayaa. marka haddaan niyad fiican la imaano oo ku celcelino insha allah laga yaabo in ilaahay na siiyo ama u badi in ilaahay naga aqbalo maadaama la inama alacmaalu binniya. so marka habeenka u horeeyo maxay tahay ramadaan 10ka dambe ee ramadaanka ee cadaabka la iska xoreynayo waxaan diirada saaray habeenkaas oo ah caawa ummadaha dhan inaan u duceeyo, ummadaha dhan makhluuqaadka dhan ilaahay abuuray inaan u duceeyo oo inuu ilaahay cadaabkana ka xoreeyo, dad wanaagsanna ka dhigo, siraad mustaqiimkana soo wada saaro. ilaan dunida iyo waxa saaran iyo wax ku noolba dad iyo dunyaba ilaahana leh, ilaahana na keensaday, ilaahay adoonkiisana nahay. waxaana muhiim ah mar walba inaan ku mahad celino in ilaahay anaga naga dhigay dad muslim ah. sababtoo ah waxyaabo badan ayaan maxay ahayd uu ilaahay inaan ugu mahad celino muhiim tahay. marka waana muhiim in dadka kaleetana u duceeno, ummadaha kalena maaragtay xaqa iyo inuu ilaahay tuso naxariista ilaahay inuu tuso iyo wax walba. marka habeenka koowaad ee habeenka caawa ah, habeenka koowaad ee 10ka dambe ee la iska xoreynayo cadaabka waxaan diirada saaray inaan u duceeyo ummadaha adduunka ku nool oo dhan. marka habeenkii labaad oo noqon doona habeen dambe haddii eebaha awood leh nabad iyo naxariis nagu gaarsiiyo insha allah waxaa ii qorsheysan inaan u duceeyo ummadaha islaamka oo kaliya si qaas ah oo maaragtay ilaahay uga baryayaa in ilaahay dhammaantood cadaabka ka wada xoreeyo. ummadahaas oo soo galaya anaga ka mid nahay Soomaali ahaan iyo ummadaha kale oo dhan si guud iyo si gaar ahba. habeenka saddexaad ee ramadaanka 10ka dambe ee cadaabka la iska xoreyn doono insha allah waxaan diirada saari doonaa haddii eebaha wada la idmo ummadeena si qaas ah, ummadeena Soomaaliyeed, si ilaahay ma aragtay kana nabadgelyo naxariis iyo dambi dhaaf
iyo cadaabka nooga xoreeyo ilaahay insha allah aan aada diirada u saaro. ma noqonaysa habeenkaas kaliya inaan diirada saaro, waxaan ka wadaa maalintaas oo dhan, maalintaas ay 3 tahay ama maalinta 1 ay tahay oo caawa ah, maalintaas oo dhan iyo habeenkaas oo dhan iswato 24 saac oo dhan salaad 5 salaadood iyo taraawiixda iyo tahajjudka aan tukanayo insha allah haddii eebbaha awooda la idmo, inaan ducadaas ku celceliyo oo ummadaas u duceeyo mar walbo si ay fursadaas u badnaato ama u sahlanaato in ilaahay insha allah uu aqbalo. habeenka afaraad ee 10 dambe cadaabka la iska xoreynayo marka insha allah haddii eebbaha awooda la idmo, waxaan diirada saari doonaa qoyskayga oo ah maaragtay dadkii dhintay iyo dadkii noolba. haddii aan ku bilaabo dadkii dhintay oo qoyskayga qaas ahaan, waxaan aada diirada u saarayaa aabahay macaan oo dhintay 2009 oo aada iyo aad aan u jeclaa, aada iyo aadna aan ugu xiisay. waxaan ilaahay uga baryaa in cadaabka ilaahay ka xoreeyo, iga raali noqdo hadaa oo inay qabato oo inaa isku cilnooya. marka aaba ilaahay u naxariisto iyo aabayaasha dhammaan dunida joogto oo iyo kuwii dhintay intaba. waxaan kaloon insha allah diirada saari doonaa habeenka afaraad ee cadaabka laiska xoreyn doono eedaday ayadana aan aada u jeclaa. waxaan kaloo dadka aqaano aan koo soo hormarina oo qoyskayga ka ah iyo dad aan aqoonin aan la kulmin balse la iiga sheekeeyo oo qoyskayga ah. waxaan kaleetoon diirada saari doonaa haddii eebbaha awooda la idmo awowayaashay, ayeeyooyinkay, abtiyaashay, habreertay goor dhow dhimatay, ilaahay aa u naxariisto oo maxay ahayd Soomaaliya gobol kamida ku dhimatay. ilaahay ayaan janno fardoos uga baryaa ayada iyo dhammaantood dadkii kaleeto oo ehelka iyo waaridkii ahaayo dhintay. waxaan kaleetoon ilaahay naxariis uga baryayaa maxaa la dhahayay waxaan kaloo ilaahay naxariis gaara uga baryayaa mar walbaba aabahay, waayo aabahay aada iyo aad ayaan ugu dhawaa ama aan u jeclaa. waxaana ka dareemaa isagana sidoo kale si ka daranba inuu i jecel yahay. marka insha allah ilaaha aada uga rajeynaya inay intoodaba iyo intii kaleeto dhammaan janno fardoos ugu bishaarayo cadaab ka xoreeyo. habeenka 5aad insha allah 10 dambe ee cadaabka la iska xoreynayo, waxaan diirada saari doonaa asxaabta qaar maxay ahayto aan dhintay, kuwa dhintay aan rabaa inaan diirada saaro kow, iyo inta noolba insha allah in ilaahay dhammaanteen cadaabka naga wada xoreeyo. balse kow waxaan aada diirada u saari karaa aan rabaa inaan saaro inta dhimatay waxaa kamid ah gabadh Eritrean ah oo mar dhow dhimatay oo muslim ah, Muna la dhihi jiray. gabadhaas oo ku dhimatay coronavirus uu dilay, gabadhaas oo iskala shaqeynaynay meel shaqo aan isku baranay, goob tababar shaqo aan isku baranay, gargaarka ummadaha oo kaleeto, humanitarianka iyo waxaas charities aan ka wada shaqeynayna. gabadhaas aada iyo aada qof u fiican ahayd maasha allah. markii iskugu keendabeysay aan kala tagnayna aan iska ballan qaadnay inaan is arki doono mar dhow maalin hebel, inaan maxay ahayto coffee isku raaci doono, inaan maxay ahayto aan qorsheyn doono sida maaragtay dadkeen oo Afrika jooga Eritrea iyo Soomaaliya aan maxay ahayto si gargaar waxqabad ama cunto ama wax kaleeto aan u sameyno, si aan maaragtay insha allah dadkaas tabarta yar leh ama dadka aan awoodin inay is caawiyaan aan caawino. balse ilaahay taas muusan rumeynin. markii aan maqlay inay dhimatay aada iyo aad ayaan uga xumaaday, mar walbana aada ayaan u xasuustaa. waxaana aada ugu rajeynaa ilaahay inuu ilmaheeda u xafido, inuu xaajigeedana ilaahay u xafido, in ilaahay janno fardoos iyadana geliyo. waxaan kaloo haddana rabaa inaan u duceeyo gabar kaleeto ayadana aan mar dukaan kula kulmay, ayadana Soomaali ah oo dhimatay, Khadiijo la dhihi jiray. iyadana qof aada u fiican ahayd maasha allah. wax badan isma aqoonin, in yar unbaa isnaqaanay, meel ay ka shaqeynaysaan wax ka iibsan jiray. kadibna waxaa maqlay anoo shalay camal la kulmay, caawo kale seexatay, cuntada markay cashaysay maxay to matagay lasoo booday, andan
way dhimatay. marka taas waxay noo cadeynaysaa in naftani meel jirin, adduunkana ma aragtay wax yar oo qiimo lahayn uu yahay, balse anaga aan ka dhigayno wax qiimo leh. marka waa muhiim inaan mar walba is ilaalino, waana muhiim inaan mar walba taxadarno, waana muhiim mar walba afkeena iyo adinkeena inaan dadka ammaan ka helaan, sababtoo ah ma ogid mana ogin waqtiga noola imaanayo. nala laga yaaban inaan maxayd anagoo waxun ku jirno ama waxun sameynayno in naftana laga qaado oo markaasna cadaab iyo dib aan ku dambeyno. taasna maaha wax wanaagsan oo aan rabno, soo maaha. waxaan kaleetoon asxaabta kamid ahoon rabaa inaan insha allah u duceeyo habeenka shanaad cadaabka la iska xoreynayo, 10 dambe cadaabka la iska xoreeyo raba aad inaa ilaahay ugu baryin cadaabka ilaahay ka xoreeyo. oday oo sheekh ahaa oo walaalkay dacdiiga weyneed saaxiib la ahaa, odaygaas oo maasha allah marmar noo imaan jiray, qur-aankana saari jiray, oo asagana maaragtay isugu joogay maaragtay aroona wax si ka noqday, dabaq iska soo tuuray halkan London, kabacdina dhintay. laakiin si aan ka malaysan waayo ilaa hadda qalbigayga maskaxdeeda ka foqula, sababtoo ah qof aan ka malaysanayo ma aha. isagaba hadduu saas sameeyo waxaas dhaha qof kasta way ka suurta gali kartaa wax kasta inuu sameeyo, sababtoo ah odaygaas wuxuu aaday aada u degan, diinta aada ugu fiican, qur-aanka aada u jecel, asxaabta jecel, ehelka xiriiriyo, aad iyo aada uga xumaaday. marna ma ilooba ilaa markuu dhinta, mar walba waa u duceeya aan soo xasuusto. habeenka 6 marka insha allah dariska oo kaleeto inaa u duceeyo, dariska intii dhimatay intii noolba in ilaahay cadaabka ka xoreeyo. habeenka 7 ehelka dhammaan guud ahaan iyo gaar ahaan waataan gaar ahaan hoos usoo dhaadhacay hadaya qoyska bilaabay, laakiin guud ahaan ehelka. habeenka 8 dadka aan la shaqeeyo kale, dad aan la shaqeeyo dhintay way jiraan. macalin wax bari jira kamid ah jaamacad ii dhigi jiray, dad kaleetan way jiraan. habeenka 9 inaan u baryo in ilaahay cadawga ka xoreeyo cadowga marka waxaa weeye dadka ama ogtahay inay xaasid kugu yihiin ama ku dhibaan ama nafta kuu keenay ama dadkaada ogeen intaba, marka ilaaha inaan u barino cadawga ilaahay cadaabka ka ilaalisho, sababtoo ah adima ogid ama ogtahayba qofkaas inuu ku dhibay, laga yaabo inaa marmar dhibsatid oo naxdid oo laga yaabo intaas inuu qofkii cadaab ku galo, balse haddaa ilaahay u baridid waxaa laga yaaba in ilaahay adna kuugu naxariista, naxariisashadaas aa u naxariisato qofku dhibaayo oo ku cadaadinayo, in ilaahay adna kuugu naxariisto, qofkaasna ilaahay ugu naxariisto. marka afkaaga inaad habaar kasoo bixisid waxaa ka fiican inaad duca kasoo bixisid. marka cadowgaaga inaa qofka cadowgaaga ama dadka cadowgaaga inaa u duceysid waa muhiim, waayo waxaa laga yaabaa in ilaahay dhammaanteen idinku wada naxariisto, wax faa-iidaa ka helaysidna ma lahan in qof kaleeto oo la cadaabo, qofkii ku dhibaayo oo ku taakeena asaga lee u taalaa, ilaahana la xisaabtamaayo. laakiin adin markasta ohow qofkaas qofka ka fiican, qofkaas qofka ka wanaagsan, qofkaas qofka ka ilbaxsan, qofkaas qofka ka waayo aragsan, qofkaas qofka ka allabaq badan inaad tahay adiga, sababta ah qofka adiga dhibka kuga haya hadaa u duceysid waxaa muujisay geesinimo iyo maxaragta guul la hubo. habeenka 10 ee habeenka u dambeeyo inaad diirada saaro aniga inaa isku duceeyo habeenka u dambeeyo insha allah in ilaahay cadaabkayga xoreeyo, in ilaahay dhib i tusin, in ilaahay maaragta adduunka sababta ii keenay anoo sababta ilaahay ii keenay sameynin ama fulinin inuu iga wadan ilaahay, in ilaahay qof wanaagsan iga dhigo, in ilaahay dunida qof wax wanaagsan kusoo biiriya iga dhigo, in ilaahay maaragtay fasahaadka iga ilaaliyo, iyo dhammaan in maaragtay cadaabka ilaahay ka xoreeyo dadka kale oo ehelkayga ah isku duub, sida maaragtay caruurtayda, xaajigayga, maaragtay dumaashiyaalkay, sodogayga, sodohdeyda, dhammaan isku duub maaragtay ehelka. habeenka u dambeeya maarka ducada waa gabagabo dadka oo dhan, laakiinse kow inaa aniga diirada isa saara, kabacdina guud ahaan muslimiinta xataa intii hadaya kala dhigdhigay inaan haddana isku soo wada duubo. marka
intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. aad iyo aad mahadsantihiin. marawina hadalkan ka badiyo waa inoo mar kale hadii bahawada la idmo waad mahadsantihiin. fadlan hadii aad ka heshay like saar, adigoo aad iyo aad u mahadsan. subscribe saar, dadka kalena la sii wadaag, waayo waa bilaash, waxba lagama rabo. marka mahadsantihiin, waad la kaftamay. waa inoo marka loo xiisa leh hadii bahawada la idmo. waa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum.